xikmaddu waa faham qoto dheer, garaad iyo aqoon aad u sareyso oo lagu ogaado xaqiiqooyinka nolosha, waxaana lagu saleeyaa khibrad, fiirfiirsi iyo aqli badnaan. xikmaddu waa awoodda loo leeyahay in lagu sameeyo go'aamo sax ah iyo in si fiican loo fahmo xaaladaha nololeed. dadka xikmadda leh caadi ahaan waxay leeyihiin aragti fog, talo wanaagsan iyo faham sare oo ku saabsan nolosha iyo dadka. magacayga waa Jaabir Cusmaan JB, halkan waa Madasha Dhalinta Soomaaliyeed. ku soo dhawow xikmadso, nagu soo biir, follow soo dheh janaalkeena, sidoo kale YouTube-keena ku soo biir, subscribe dhaho. mahadsanid daawadaha sharafta leh. xikmaddu waa shidaalka qof walboo rabo inuu gaaro guul iyo horumarba. halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa xikmado gebi ahaanba noloshaada bedeli doona. ku soo dhawow mawduuceena maanta. xikmaddeena koowaad, mashaakil kasta oo aad ka baqaysid waa fursad weyn. qisooyinka guusha kuwa ugu waaweyn waxaa buuga ku xariiqay dad gartay fursadaha ku hoos duugan mashaakilada, kadibna u bedelay guul. aqoonta keliya ma ahan midda kuugu filan, ee waa inay raacdaa dhaqangelin. doonista keliya kuguma filna, ee waa inay wehlisaa tallaabo qaadid. quusasho nolosha ma wehliso, nololna kuma ansaxayso meel ay quusasho ka jirto. qofka leebka tuuraayo haddii uu gafo, isaga ayaa dib isku fiiriya sida uu ogaado qaladka uu galay. arrinku waa sidaas. haddii aad rabto inaad ujeedkaaga gaarto, naftaada hagaaji, qaladkaaga dib u sax, cid kalena ha eedayn. fashalka waa hal mar un waddada ka weecatid, ee ma ahan gabagabada howshaada. kuwa guulaystay waxay tilaabooyinkooda barbardhigaan hadafka ay leeyihiin, kuwa fashilmayna waxay tilaabooyinkooda barbardhigaan tilaabooyinka dadka kale. guulaystaha waa qofka garanayo hibada uu Allah siiyey, kadibna uu adeegsanayo sida awoodda badan si uu hibooyinkaas ugu bedelo xirfado, kadibna uu adeegsado xirfadahaas inuu ku xaqiijiyo hadafkiisa. raggu waxay leeyihiin 3 magac: magacii uu dhaxlay, magacii waalidkiisa ula baxeen, iyo magacii uu isaga samaystay. daawada waa iska hubaan in qof walba naga mid ah inuu dhulka ku dhacay, yacni soo fashilmay. haddii aad adiga tahay mid aan weligiis dhulka ku dhicin, fashilmin, ma lihid aqoon aad kaga soo istaagi kartid dhulka marka aad ku dhacdid. qaladaadka waxay leeyihiin xanuun badan marka ay dhacayaan, laakiinse sannado kadib waxay qaladaadkii qaadanayaan magac kii hore ka duwan oo loo yaqaano khibrad. si aad u guulaysatid, waxaa lagaa doonayaa inay rajadaada ka sara marto baqdinta ka qaybtid guuldarrada. si aad u xalisid mashaakil kasta, waxaa ku hor yaalo 3 su'aalood. kow, maxay suurtagal tahay inaan sameeyo? maxay suurtagal tahay inaan akhriyo? maxaa ii suurtagal ah inaan weydiiyo? daawade, waxbarashada nidaamiga ah oo ay dowladda bixiso waxaad ku helaysaa shaqo. waxbarashada adiga iska aad isku bartidna waxaad ku helaysaa hanti. inaad guulaysatid haddii aad doonaysid, sameey arrimahan soo socdo. garo waxa aad samaynaysid, jeclow waxa aad samaynaysid, rumeey waxa aad samayn doontid. guusha nolosha waxaa tiir u ah soo jeed, u diyaargarowgan fursadaha iyo ka faa'iidaysigeeda marka ay timaado. waxaan ogolaan karaa inaan fashilmo, laakiinse ma ogolaan karo inaan ka fariisto iskudayga. sirta ugu weyn guusha waa xamaasadda joogtada ah. waxaa dhici karta in aan aqooni waayo furaha guusha, laakiinse waxaan ogahay in furaha fashilku uu yahay iskudayga raaligelinta qof walba. ku noolow qaabka aad u hiigsanaysid, ee ha ku fakirin maalmihii hore ee macaanaa. falaarta markii asiibi weyso goolka aad u rabtay, ha ka fikirin waxa uu yahay qaladka aad gashay, ee soo siiwo falaarta labaad, kadibna u fakir waa maxay waxa ay waajibka tahay inaan sameeyo si aan u asiibo goolka. waa inaad u guulaysataa maskax ahaan ka hor inta aadan ku guulaysan noloshaada. dadaalka miro kama dhashaan ilaa uu ruuxu dadaalkaas wado uu ka diido inuu quusto oo isdhiibo. guusha micnaheeda waa inaad heshaa wixii aad doonaysay, farxadda micnaheeduna waa inaad jeclaataa wixii aad kasbatay. waa dhab ma suurtagalayso inaad xakamaysid wixii kugu dhici doona, laakiinse waxaad awooddaa inaad xakamaysid qaabka aad ula macaamulaysid wixii kugu dhacay. sidaas baana ku xakamayn doontaa isbeddelka, ee ma ahan inaad u ogolaatid inuu isaga ku maamulo. muhiim ma ah heerka aqoonta aad ka gaartay, oo baahi uma qabtid wax badan inaad taqaanid. mar haddii aad taqaanid xilliga ay bannaan tahay inaad hadashid iyo xilliga ay habboon tahay inaad aamustid, fursadaha guushaada waa ay sii kordhayaan. qof kasta ku guulaystay nolosha oo aan la kulmay wuxuu igu yidhi, waxaan nolosheeda u bedelay meel roon xilliga aan bilaabay inaan ku kalsoonaado awooddayda iyo nafsadayda. nolosha ayaa ah macalinka ugu weyn. inta badan nolosha ma hadasho keli ah, qofka waa ay tuurtuurtaa. tuurid walba nolosha oo odhanayso toos. waxaa jira wax aan doonaya in aad baratid. hantida ugu weyn aan wada haysano waa maskaxdeena. haddii aan dhanka wanaagsan u tababarno, hodantinimo aan dhammaan ayaa inoo keeni kartaa maskaxdeena. kalsoonida iyo howlkarnimada waa daawooyinka ugu wanaagsan ee
in lagu dabiibi karo xanuunka loo yaqaan guuldarada. Kufidda waa qayb ka mid ah nolosha, kicidduna waa nolosha iyo waqtiga waa labada bare ee dunida ugu wanaagsan. Nolosha waxay ina bartaa adeega wanaagsan ee waqtigana wuxuu ina baraa qiimaha ay leedahay nolosha. Ama qor wax u qalma in la aqriyo, ama sameey wax u qalma in wax laga qoro. Dhiirigelinta ayaa ah shidaalka kugu riixayo yoolkaaga. Kacdoonka ugu weyn ee aad ka geysan kartid koonkan waa inaad ku noolaato nolosha aad ku haminayso. Afkaartaada maaree, sababtoo ah waxay noqon doonaan erayo. Maaree erayadaada, sababtoo ah waxay noqon doonaan falal. Maaree falalkaaga, sababtoo ah waxay noqon doonaan caadooyin. Maaree caadooyinkaaga, sababtoo ah waxay noqon doonaan shakhsiyadaada. Maaree shakhsiyadaada, sababtoo ah waxay noqon doonaan mustaqbalkaaga. Argoosiga ugu fiican waa inaad guulaysato. Ugu dambayn, haddii aad naga faa'iiday muuqaalkan, like saar, la wadaag asxaabtaada, share dheh. Intaan muuqaalkan lacina ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.